بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سومالي لا أنا ولا سومالي لا كرتيله أقول قدام قنايا دتكيسا وقلما إن الندورنا أو إنه كنسينا وعنو بعنا يقول كرتيله أو أيضا قيسو وضنيادو ما هي إنه قف كستا أينو هنقل تاجنو أبا أينو نرانو هبل الناس وقبتا مركا وإنه قد قرنا هنا ما يمر وقفاتو كرتي بدن بدن ورا عرب سعودي ويقرنا يان mana halkanina qof aan maanta u noorayno maaha waa qof aad wada garanaysaan aad iyo aad in ay noqon karto qof hawsha loo diro ka soo baxaysa arabsiyana wax u qaban karta marka walaalayaal waxaan leenahay inaynu garbaha qabanno oo aynu si fiican aynu dhammaanteen inaga oo eegayna qofka aynu dooranayna wal waxa uu yahay marka dhammaanteen waxaynu leenahay soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa dadkaagii aad waxay ku leeyihiin aad iyo aad baan raalli kaaga nahay marka aad iyo aad ayaan idin salaamayaa idinkana markaaynu sida aynu gacanta u qabanno aynu soo dhaweyno waa qof kartila Maymuna waa qof u qalanta balaaskani inaynu soo saarno oo aynu ka soo baxda halkan arabsiyo oo ay noo noqoto xildhibaan dadka iyo dalkaba wax u qabta marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim mudane iyo marweyn dhammaantiin waad islaamayaa waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa dad waqtiga badan geliyey ee xafladan aadka u qiimaha badan ka soo shaqeeyay iyagana mahad baan u dirayaa maanta waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan shaacinta musharaxadda Maymuna Daawud Axmed runtii Maymuna waa qof u qalma in golaha deegaanka iyo meel ka sareysa u qalma runtii waan hambaleynayaa Maymuna guul baan rajaynayaa Maymuna runtii waa qof dad jecel Maymuna runtii waa qof dal jecel Maymuna Daawud runtii waa qof daacad u ah bulshadeeda Maymuni waa qof aqoon iyo waayo-aragnimo ballaaran u leh gobolka Gabley bulshadeeda waa qof maanta garan kara baahiyaha iyo waxay tabanayaan dadkani baahiyaha ay qabaan dadkani runtii Maymuna Daawud waxaan leeyahay hambalyo musharaxnimada waan ku hambaleynayaa waana dumar bulshada Somaliland dumarku waa boqolkiiba 60 dumarku iyaga wax doorta waa dadka had iyo jeer madaxweynaha soo saaray codka bixiya ee aan daalin ee aan caajisin ee kuyuga ku jira aroortii ku kala waa dumar xildhibaanka cid doorta soo saar waa dumar ee codka dhiibta waa dumar marka waxaan leeyahay dumarku waxa bay dhaan koota loo xidho kooto deegaaba badan ba oo boqolkiiba 60 ka bulshada iyaga soo saar xildhibaanka iyaga doorta inay musharax baarlamaanka deegaanka intaba iyaga dadka soo saar codka bixiya waa dadka cod bixiya ugu badan way dumarku marka Maymuna Daawudna waa qofkii ugu horeeyay xildhibaana ee shaaciya golaha deegaanka degmada Gabley marka barbarka ka baxda waa bakay qalay balaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياش حق دينا وضياشة ودنا هذا دقوي فليتفضل مشكورا. ورحمة الله وبركاته. انت وحي إضافة وحويان وحي نسكن حفلنا سيدة والعكس الله سواء قاسمي يا ميمون أحمد داود أحمد برخط المشرع قطعي وحن ولا يعي وقفوا قلبي كرا عرب سيو وحقبت كذا قبيلة ككاري لكن عرب سيو وحلو بهاي لو المشرع وراينا صومري
وعلى وحي عرب سو قبتنا ما قرنينو لكن ميموني وحن آمنسناhay inay wax u qabanayso degmada Arabsiyo oo ay ka keenayso oo ay ka midhalinayso wax qabadkeeda sida darteed waxaan doonaynaa inaynu Maymuuna Daawud gacan siino oo aynu gebigeenuba taageero sababtoo ah waa shakhsiyad aad u wanaagsan oo wax qabadka oo u damqanaysa dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda u damqanaysa sida darteed waa inaynu gacmaha isqabsanaa oo aynu gabadhaasi Maymuuna Axmed Daawud taageeraa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مروين يا مدنيال عقاشا صلادينتا حوينكا دليرada wiilal iyo gabdhaha balle ee sida quruxda badan looga soo qayb galay xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waxa farxadii ah inaan ka soo qayb galo xaflad qof Maymuuno oo kali ay isku soo taagayso xil waxaan erayo kooban ka oranayaa intaan Maymuuna ka garanayo meesha ay ku socotana intaan ka garanayo waxay Maymuuni nooga baahan tahayna erayaan ka oranayaa si gaar ah waliba anoo tilmaami doona haweenka Maymuuna intii aanu ka wada shaqaynay ama arrimaha siyaasadda ama arrimaha bulshada waxaan ku aqaanaa qof go'aan leh ku dhac leh karti leh wax dhageysan karta wax qaadan karta waxna go'aamin karta halka ay ku socoto hadaan Maymuuni wax ka tilmaamo oo aan bulshada u iftiimiyo horta waa golaha deegaanka ee dawladaha hoose golahan deegaanku muxuu qabtaa waxyaabaha inaga khaldan bay ka mid tahay golahan deegaanka waxaynu u dooranaynaa inay wax ka qabtaan gol jileeciya iyo meelaha jilicda sanle sida caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha dadka taagta daran leh kuwa dhimirka wax ka qaba kuwa daayacan kuwa ayaa xogogaal u noqon kara in la isweydiiyaa taa qurux badan kuwa horta maraga ku fiican oo xogogaal u noqon kara bulshada daayacan bulshada tamarta daran bulshada caafimaadkeedu liito mise haweenka inaga fiican arrimaha waxaan leeyahay haweenka inaga fiican si gaarana waxaan leeyahay waliba Maymuuni waa qof arrimaha bulshada u jajaban ogaan karta hooyada tabaalaysan ogaan karta waayeelka daayacan ogaan karta xarumaha caafimaadka iyo hooyada iyo dhallaanka waxay ka khaldan Maymuuna waxaan isleeyahay waxaan inaanay ahayn qof ku mashquuli karta golaha deegaanka maanta inoo dhisan isu yahay waa golo isagu isku maqan haddii aynu heli lahay gole halkii laga soo doortay qof kastaaba uu ku mashquulsan yahay la iskuma waayteen bagabili maalin walbana moojin ma yaaleen laakiin qof walba wuxuu garan lahaa xilka ay ummadu igmatay ee ay u dooratay ee loo baahan yahay inuu qabto oo qof walba halkii laga doortay ayuu ku maqnaan lahaa bilaa calaykum aad aragteen saddex dhibaan baa Arabsiyo magacaaban Arabsiyo intay ku soo noqdeen bulshada Arabsiyo ay soo dhex fariistaan oo xogogaal warsadeen ama goobta iyo golaha deegaanka arrimo khuseeya Arabsiyo ay kaga hadlayaan bilaa calaykum aragteen waa arrin maqan Arabsiyo ka maqnayn dhamaan tuulooyinka iyo degmooyinka laga soo doortay xildhibaanku maalintaas ugu dambaysa waa xildhibaan in yaroo jeebkiisa iyo shidaalkiisa ku dhacda u xagxagta maayirka bis maalinna isaga taageera maalinna ka hor yimaada waxaan isleeyahay Maymuuni inay arrintaasi ka duwanaan doonto waayo waa qof aan ku aqaano inay u jajaban tahay arrimaha bulshada innaga maxay nooga baahan tahay Maymuuni maanta hoo iyo hilba innaga inooga baahan tahay khaasatan reerka haween la yiraahdo bahweynta haween la yiraahdo sidii aqoonyaankii iga horeeyay oo halkan ka sheegay waa beesha ugu tirada badan la Soomaaliland
haddana koota doonaysa ayaan daradeeda waa beesha codaysa madaxweynaha soo saarta baarlamaanka soo saarta golaha deegaanka soo saarta safafka iyadu taagan 6 subaxnimo ku waabariisata 6 maqribnimo taagan aan daalaynin hadlaysa guuleynaysa ololeynaysa inta wada inay xildhibaankeeda u doonto kooto dumar ayaan daraydi ku taag baasha hadii guriyada la fadhi waayay oo kuraastii la yimiday de kuraastiina ritaan leeyahay waxaan leeyahay maymuuni xilka way u qalantaay haweenweynaha gobolka Gabiley iyo gaar ahaan haweenka Arabsiyawa waxaan leeyahay codkiinu hal qof iyo hal cod iyo maymuuna oo islaayahay waa mustaqbalka soo socda maymuuna waa kala haweenahay xildhibaan golaha deegaanka laakiin insha Allah ta'ala xilka way ku guuleysan doontaa waxaanay noqon doontaa maayirada degmada Gabiley biidni rabbil caalamiin waxaana filayaa hoos rag waxay isku xantaan dhammaan nimankii gudoomiyaasha degmada soo maray ee degmada Gabiley inay hadii miisaan la isku saaro khadra xaashigeed iyo dhammaan wixii rag soo maray inay khadra xaashigeed ka miisaan weynta maymuunana waxaan isleeyahay halka meel ka dheer iyay gaarsiin doontaa insha Allah ta'ala guul baan u rashaynayaa sida aan iskugu soo baxdeena codkeenu ha ahaado maalinta foodka iyo maymuuna insha Allah ta'ala iyaduna way guuleysan doontaa waxaan mar kale idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marka hore waxaan salaamayaa dadkan tirada badan leh ee rag iyo dumarba sida quruxda badan leh xafladda qiimaha iyo qaayaha badan leh uga soo qayb galay dumar iyo ragba dhalinyar iyo waayeel ayaan idin salaamayaa salaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa salaanka bacdi xafladeena quruxda badan ee aynu maanta ku soo dhaweynana xildhibaanadeena Maymuuna Daawud Axmed waxaan leeyahay soo dhawow baan leeyahay waxa weeyaan Maymuuna waxa weeyaan qof aad iyo aad u qiimo badan sida xaruntu ay tahay ee la wada ogyahay xaqiiqatan oo aad iyo aad u qiimo badan markaasi anagu cod iyo adin iyo afba waanu laag taaganahay sidana horeba u laag taagnayn kamana baqayno anagu inay Maymuuni ay ambada meel xun fadhiisato amba la dooran waayo waa qof cadriganimo ku yaalo oo ishubta dadkuna uu aad u jecel yahay magaaladeena Arabsiyood ee kharibantay ee xildhibaanadii hore loo doortay ay waxba ka qaban waayeen ee isku dardarantay dooxada noqotayna inay u heeliso ay garan waayada iyo xirxirka ku dhacay ay wadooyin u samayso ay qurxiso ay sharaf u yeesho ay laamiye ka saarto ayaanu ku rajo weynahay sidaa darteeda anigoo aan hadalka badinayno waqtigu inagu yar yahay Maymuuna waxaan leeyahay soo dhawow baan leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle isku keenay madashan quruxda badan ee lagu shaacinayo Maymuuna Daawud Axmed mahadda labaadna waxa iskala madaxweynaheena kootada inoo siiyay haddaan dumar nahay inaan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka iska soo sharaxno iyo mahadda labaadna iskale Maymuuna haddaan kaaga sheekeeyo qof karti leh oo qof faradhuuban maanta hadii xiloo dhiibo oo qof aan soo dooranay oo ku kalsoonahay insha Allah bismillaahi kariim waa jimce 114 u maro oo waa jimce waa saacad rijaaba inay soo baxdo insha Allah bismillaahi kariim inay soo baxdo marka Maymuuna waa qof qalanta waa qof maanta magaalada Arabsiya hadii ka soo baxdo waxtarkeeda la ogaan karo una faradhuuban karti iyo awoodna u leh wax qabad wassalaamu alaykum wa rahmatullahi
الله وبركاته. سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحين سكوي من حفلة آديات كوقيمها بدل له شرفت بدل له إنكسر شاعرينه حل بالنا إنه بقالقة ميمونة داود أحمد تاسوء قبل وحكر له عد كريم له أقول له دلك وباهي هاي دتك وباهي هاي قارها دقمة عربسيو أو دقمير أو قال لي ده دقموين كغير كده تاس أو ما تلو باهي هاي هي اللي هو إن أي ما تصور صارت ميمونة أحمد داود أونلاين هاي إن شاء الله وحن نقدم تا حل بانا دي أنفعدا دقمة عربسيو قارها سومالي لان أوردن وحن كل قرب تاجن هي اللي هو وحن إن شاء الله رجينا إن نقطة حل بانا سومالي لان نكيرتو عربسينا يسبدل بعد كم وجد دونتا أنا كمان توحى فرحة إن تمركوا مدحوينه كوتسي تاس أو عن ملاين كريه قبضي وحسكوا هيساون وحدل كان كبدلي كرتا إن أي هل كان إيمان كرتو إن شاء الله وانكو قرب تاجن هاي وانكو سود دويننا أدي قدر تابن وجاي من عاصمة دي هرجيسة مرول بنهيل يهو بانكو سيننا قول يوجو بني بانكو رجينا تي وحكي بدل له عربسينا واتاي إن شاء الله هذي إلهي نكرسي أنا قون هذا الكي يكون إيراني ميمونة داود خضرة حاجي إن كبضرنا إن نقطة ميموننا وحن أذو بهوينا شرف فيها خضرة حاجي وحي قاعد هير إن مدحتو يضل لو بدي قاعد يقاسمي يدنا وحن رجينا ميموننا مالك الرئيس إن شاء الله إنه قاعد يطنطو ما أنت دبر باللو بهاي وين قرب تاجن هاي إن شاء الله يسبدل بين رجينا هير سرينا قاعدين رجينا دمر وحي أي حياة والله أركو خضرة قسام بالله أذكر إن شاء الله إن أكسر رئيسي أيام كلها قرب تاجن هاي أو هل كأي جوجي سي أكسي أم بقادي قبل يلقوا يرتد دقمة عربية ما أنت ضم بيسنا هرمر جالسين إن شاء الله رجينية هذا الكي قوان سوكا ويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أديات بنو السلام يا برشوين ترير سومال الملك استوي شوف تبدأ فهد برنامج السلام يا مرحبا reer gabilay khaasatan magaalada Arabsiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay ha guuleysato Ilaahay idinkiisa gobolka gabilay iyo degmada Arabsiyaba mar saddexaad waxay raacaa Ilaahay horta waxaan ka baryayaa in ka rajaynaynaa aafaadadoo dhan in Ilaahayna hareer mariyo dagaalada shisheeye iyo sokeeyaba wax laga ducaysto Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay dagaalka sokeeyana biyo qabow inaga shubo ka shisheeyana Ilaahay inaga shubo in Ilaahay bulshada reer Soomaaliland indhaheeda Ilaahay isku soo jeediyo Ilaahay farxad iyo guul iyo reereen iyo barwaaqo ay ku reeyaan baan rajaynayaa waxaan leeyahay qaranka Soomaaliland midnimo ayuu u baahan yahay wada dhaqasho u baahan yahay wada noolaasho u baahan yahay isjacayl buu u baahan yahay isku duubnaan buu u baahan yahay waxaynu u baahanahay in gacmaha la isqabsado oo qaranka Soomaaliland hareeraha laga fadhiisto inuu u baahanahay haween weynaha Soomaaliland waxaan leeyahay hadii aynaan u guntan qaranka Soomaaliland oo beelbeelaynta iyo kala qaybsiga laga bixin waxba inoo suurta gali maayaan mashiinka ummadleeda waa haweenka ha loo guntada qarannimada hooya agoontowda hooya hoogta aynu u guntana qarannimada Soomaaliland taas way iga dardaaran waxaan hambalyeeynayaa gubaabinayaa soo dhawaynayaa ku faraxsanahay hargeysa uga soo jarmaaday maymuna xildhibaanada daada yar leh aad iyo aad baan soo dhawaynayaa aniga farxad gaar ah ii tahay xildhibaanad dhacday baan ahay anigu marka waxa weeyaan waa maalin taariikhiya bismillah anigu xildhibaanad dhacday baan ahay maymuunay hadii aan dhacay maanta waxaan leeyahay dadaala xaaji Cabbaas waa gaaray inuu dhaafana waa la arkaa hankaygana muu soo noqonin wali waan sii socdaa hadda baarlaman iyo maxaan ku raadayay kootooyin baa isku barbar yaala horaan u sii soconaya adiga waxaan kuugu imid hiil iyo hooba inaan isla ka barbar taago ayaan kuugu imid waxaan ka soo jeedaa anigu koonfurta Hargeysa ka soo jeedaa bahweynta qarxajis baan ka soo jeedaa deegaanka ciidagaloweyna ka soo jeedaa waxaan u imid ee aan tusayaa bulshada reer Soomaaliland inay midnimo tahay baan tusayaa inayna waxba kala ahayn baan tusayaa dad badan baa oran doona samsan wadani maxaa talaabiyo waa naanaystayde marka waxaan leeyahay waa la isku talaabayaa waa la wada damaashaadayaa dhilka xoor kala reer Soomaaliland wada cabayaan maymuunay soo dhawow baan ku leeyahay sumar labaad iyo
mar saddexaad ba soo dhawow hankaaga iyo himiladaadaba allaha kuu rimeeyay in adeer waanaad guulaysanaysaa in adeer ilaahay idamkiisa waad guulaysanaysaa ha ka walaacin ha ka gabiilay khaasatan degmada aynu joognaa Arabsiyo waxaan leeyahay haweenku ha isku duubnaado waa markii qabyaalada haddana haweenkan soo noqonayaaye haweenku codka ha isa siiyo haweenku ha isku farxo haweenku ha isgarab taago inan kasta oo han leh la isgarab taaga baan leeyahay madaxweynayaasha inaga soo saarna raggeena inaga soo saarna raggeena laga tagi maayo laakiin ayaguna ha inoo hiiliyaan codka hayna siiyaan hayna soo dhaweeyaan taasaan ayagana ka codsanaya waraga codkana siiya hablihiinni baanu nahay hooyooyinkii baanu nahay xaasaskiinni baanu nahay codka hanala siiyo codka بسم الله الرحمن الرحيم dhammaantiin rag iyo dumarba dadka sida sharafta leh quruxda badan maanta ugu soo diyaar garoobay xafladda Maymuuna Daawud Axmed ay ku shaacinayso inay diyaar u tahay golaha deegaanka ee soo socda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa yar iyo weynba salaanta islaamka assalaamu calaykum salaam kadib Maymuuna waxaanu soo wada shaqaynay muddo waqti adag oo tartan adag oo qabiil iyo isjiidasho iyo isxagaxagasho badan oo dadka aad moodo inay qaybsamayaan oo lagu dhex jiro Maymuuna Daawud waxay ka soo gudubtay oo ay ku dhaantay rag badan iyo dumar badan hawshii adkayd ee qabiilka lahayd ee lacagta la isticmaalayay ee cunfiga badnayd ee dirirta badnayd ee xuduudaha iyo limitationka badnayd waxay kaga soo baxday karti iyo adayg iyo aqli ayay kaga soo baxday waxaad ogtihiin in waddanka Soomaaliland intiisa badan gobolada waqooyi ee Soomaaliland waxaan ka hadlayaa Gabiley iyo nawaaxigeeda waxa la og yahay inay tahay qofka wadani aadka ugu dadaashay in magaciisu ku weynaado oo aad looga yaqaano degmada Arabsiyo Gabiley ilaa Boorama waan ognahay gooro badan xisbiyada kale inay talooyinka galeen sidaynu ku gaadhnaa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هذا البدر والربايو waxaa soo qaadanaya iyo laba kalmadooda marka doorasho laga hadlayo dadka waxa iska dhaxgalay xisbiyada iyo shaqsiga qofka iska dhaxgalay hadda waxa leeyahay ogashada iyo cadaalad jira xisbiga ha coday waa dadka meesha carada tartamaya kuma kuraali gelinaya hawsha ka soo baxaya hal isweydiiyo kulmiye iyo wadani xaga iska dhig wadada kula deegaanka tartamaya yaa u qalma xilka inuu qabto waxa Maymuuna Daawud waan habalyeelaya waa qof qalbi la doorto dadkana waxa leeyahay awashadii cadaalad ka jira xisbiga ha coday alma wada cali masaar danta caamahan niman caawinay iyo doqor ha coday dadka kii ka cuni yar xirway wareer cilaan ad hawsiinilo gacanta iyo bariicil ku badi hana caawin hadhow tugura agmale ala saraadilo calooshii ku haji qofka aan dooranayno dawlad guri ka doonay adku wanaagsan Maymuuna waxa la adku ku sileynaa hambalina kule weynta reer Arabsiyood iyo maxaan ku dhahday marti sharafta degmada Gabiley iyo caasimadii Maroodijeex bay iga soo buuqday ee farxadeyda u yimidayba aad baan ugu weynta reer Arabsiyood aad baan ugu mahadnaqayaa taageerayaashaydana aad baan ugu mahadcelinayaa waayo maanta hadal aniga ima yaalo hadal badan ima yaalo waa la dhameeyay waxa kale oo waxa aniga yaalo inaan idin mahadceliyo oo idin mahadnaqo taageerada saad maanta ay siisana codkaadi siisan bismillaahi kariim si aan idinku hiiliyo oo sidii ay aqoonyahanadu soo hadleen aan idin noqdo xidigta Arabsiyood insha Allah sidaan ku hanweynahay
istuduubi maayo noqon maayo hanqaraar markaad doortaan igu kii dambayn mayso halka aan taaganahay laamidani ma ka shaqeynaya saalimka uu shaqeeyo si ka badan baan u shaqeyn doonaa ilaahay kariim daa aqoonay iguma kii laabna oo aad wada garanaysaan waxa laga yaabaa inaydaan adeem hadii aan guri ka soo baxayaan adiga dhuuman lahayd halka uu igu manasaan anad ila xisaabtami doontaan gaar ahaan waxaan u sharaxanahay haweenweynaha reer Arabsiyood oo aanan ku maxaan ku dhaadayeen aan ku ololeysanaynin qabyaalad aan u simanahay haweenka reer Arabsiyood ayaan u simanahay ilaahay kariim إن شاء الله هذا البدن يهون قوي دمبيسا يدعي عيارين يا يسلا جرنا إنه وأنا تجمعوا مال العبادة وعلم إني لا تشوفته إني إسك عبادة استانا يبنانتاي أدبان تجيبوا مهنا غيا أدبان تجيبوا مهد علينا بل كانوا نوا إن شاء الله وقت الدير بكهرسن يودكي وواصلنا تصاص عدا بسم الله الكريم إن شاء الله وحين كوجار قول يا عظمة غبي مدرب إنه كوجار دونا وقت جاي نوجا هرسن وحنا نقولنا هاي ما توي نجا هاني إن شاء الله إن شاء الله رأينا رأسيو واندين مهنا غيا دمنا رأسيو دمنا تلاقينا ونص منا هاي وحنا نقول إن خبرتي على صوبه عدالة نخش شقين دونا ضيعتنا نوعان دونا إن شاء الله ويا قريبا كذا يري هاي أيو كعب بدي هاي قريبا كعب بدي هاي أيو كذا يري هاي إلا هو قرا وما هذا كبلادك وإلا هو هذا عربسيو دنا ونص منا هاي أتيجي قوية ونص منا عربسيو دنا ونص منا